kula wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkana waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo xalay ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho taasoo u dhaxeeya argagixisada Al-Shabaab ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo tallaabo adag oo dowladdu maanta qaaday kadib dagaalkaasi xalay dhacay. Siciid Cabdullaahi Deni oo kala diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland waxaa ku ogaa doontaan warbixinteena. booliiska maamulka waqooyi bari oo qabtay nin ku eedeysan kufsi uu u geystay gabar ku nooleed laascanood. qodobada kale aad barnaamijkeena ku daawan doontaana waxaa kamid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo weli raadinaysa xal sidii ay ugu heli lahayd khilaafka kala dhexeeya Jubbaland hadba darbi madaxa ay ku dhufanayaan. waxaad kaloo barnaamijkeena ku daawan doontaan dilal ku saleysan aana qabiil oo kusoo kordhaya Galguduud iyo faahfaahino arrintaasi la xiriirta iyo ciidamo ka tirsan Jubbaland oo qarax culus lala eegtay iyo sidoo kale khasaare halkaasi ka dhashay. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena oo kusoo dhawaada isagoo faahfaahsan. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay qaadaysaa tallaabooyin adag kadib dagaal qaraar oo xalay ka dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho taas oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo degdeg ah oo ku aadan weerarkii tooska ahaa ee xalay Al-Shabaab kusoo qaadeen fariisimo ay ciidanka ammaanka ku lahaayeen duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay kontaroolka lagu magacaabo buurta Cali Janaale oo kamid ah meelaha muhiimka ah ee laga ilaaliyo amniga caasimadda. dagaalka culus ayaa halkaasi ku dhex maray labada dhinac kaasi oo socday muddo 30 daqiiqo gaaraysa. kooxda argagixisada ah ee weerarka soo qaaday ayaa markii hore adeegsatay baasuukayaal waxaana xigay in iskahorimaad foolka fool ah oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh oo halkaasi ka dhacay. welina si rasmi ah looma ogaan tirada rasmiga ah ee khasaaraha gaaray ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo argagixisadii soo weerartay. dowladda oo ka duuleysa ka hortagga weerarka argagixisada ayaa maanta ciidamo ka tirsan haram cad geysay daafaha caasimadda gaar ahaan dhinaca Shabeellaha Hoose kuwaasi oo haatan howlgallo ka bilaabay deegaano ku dhow magaalada Muqdisho iyada oo la fulinayo amarka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ninka lagu magacaabo Asad Diano ayaa cutubyo ciidanka haram cad maanta waxaa la sameeyay in howlgal ballaaran lagu sifeynayo argagixisada ay ka sameeyaan deegaanada Maracade iyo sidoo kale geela Saalimow ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay taliska booliiska Soomaaliya. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa si toos ah u kala diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay leedahay. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kala diray maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiilayaal la sheegay waxayna ka shaqeyn jireen dambiilayaasha argagixisada ka howlgala deegaanada Puntland iyo sidoo kale ciidamada dowladda Puntland ee dambiyada geysta. wareegto ka soo baxday xafiiska Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku qoreed 28 Oktoobar 2025 madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray xeer madaxweyne kaas oo ku saabsan kala diridda maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Puntland. markuu arkay qodobka 8aad waxa uu xeeriyay madaxweynaha cabashooyinka taxanaha ah ee cadaalad darrada ee ka imaanaya guddoonka iyo garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus loo xilsaaray. waxaa la kala diray gudoomiyaha garsoorayaasha iyo xeeryaalayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus. 2 go'aanada xabsi xalaaleynta ah ee la xiriira dambiyada culus waxaa gaaraya maxkamadda racfaanka ee dowladda Puntland inta laga soo dhisayo maxkamadda ciidamada qalabka sida. 3 saraakiishii hore ee garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Puntland waxa ay dib ugu laaban doonaan taliyadoodii ayaa lagu yiri. xeerkani waxa uu dhaqan geli doonaa marka uu saxiixo Siciid Cabdullaahi Deni horey ayuuna ka saxiixay. arrintan ayaa waxa ay daba socotaa kadib markii maxkamaddan lagu eedeeyay in ay arrimo badan oo dadku ay sheegayeen in sharciga baalmarsan tahay ay ku dhaqaaqday. markale Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la kulmay siyaasiyiinta Galmudug iyo bulshada magaalada Gaalkacyo. simada Galmudug oo hogaaminayo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle ayaa waxa ay waa simada mudug ee hogaaminayo
islaam cabdulle ayaa madaxweynaha waxa ay la wadaageen xaaladda amni ee gobolkaasi oo qeyb ka ah qalalaaso weyn oo halkaasi ka jira gaar ahaan aanooyi qabiil. sidoo kale madaxweynaha waxa lala wadaagay hindiso ay wadeen ganacsato reer puntland kaas oo ah in la dayactiro iyo maalgelinba lagu sameeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo. saciid cabdulaahi deni ayaa madaxdaasi waxa uu sheegay in uu wax kala qaban doono arrimaha ay u taagan yihiin islamarkaana uu yahay ninka u horeeya ee wax ka qabanaya dowladiisuna ay diyaar u tahay. villa soomaaliya ayaa weli waxay xal u raadineysaa khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya jubbaland. madaxtooyada soomaaliya ayaa weli waxa ay ku jirtaa jahawareer siyaasadeed oo ku saabsan sidii heshiis rasmi ah loola gaari lahaa maamulka jubbaland, iyadoo qodobada miiska yaalla ee la xiriira awoodda qeybsiga iyo maamulka doorashooyinka ay weli yihiin kuwo adag oo aan xal rasmi ah loo haynin. sida la sheegay ilo diblomaasiyadeedna ay caddeeyeen, waxaa jira in lagu kalsoon yahay dalal dhowr ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsaday dhexdhexaadinta ayaa weli waxa ay ku dadaalayaan in wadahadaladu ay sii socdaan 15 bisha Novembarna dib loogu laabto magaalada Kismaayo. si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa lagu waramayaa inuu weli abaabulayo safar uu ku tago magaalada Kismaayo, intaasi oo uu doonayo in go-aan uu la gaaro madaxweynaha Kismaayo haysta Axmed Madoobe. xubnaha ka tirsan saaxiibadiisa siyaasadda ayaa sheegay in villa Soomaaliya ay diyaar u tahay in Jubbaland lagu dayo 2 sano oo muddo kororsi ah, taasi oo bilaabanaysa waqtigii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ka baxay shirkii Muqdisho. haddii heshiis noocaas ah la gaaro, waxa ay noqon doontaa in dib u celin lagu sameeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu soo gaaro magaalada Muqdisho. arrintan ayaa waxay u muuqataa in la raacayo wadadii hore oo uu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagu markii uu xal u waayay Axmed Madoobe ugu dambeyntii siiyey 2 sano oo muddo kororsi ah. laakiin dowladii ka dambeysay ee uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud ayaa iyagu waxay ka soo qaadeen warkaasu mid aan micno lahayn. markana ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland ayaa qarax lagula eegtay meel ay marayeen. warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay qarax culus oo maanta ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland lagula eegtay deegaan lagu magacaabo Qowqaani ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo dhaliyay khasaare xoog leh. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in qaraxa uu xigay dagaal toos ah u dhexeeya labada dhinac, kaasi oo saacado qaatay, waxaana guul la sheegay inay gaareen ciidamada Jubbaland. qoraal ay baahiyeen al-shabaab waxay ku sheegeen in qaraxa iyo dagaalka xigay ay ku dileen ilaa 5 askari kuna dhaawaceen 4 kale. sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in ay gubeen qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka ay wateen ciidamada Jubbaland ee ay qarxiyeen. dhan kale, saraakiisha ciidamada Jubbaland oo iyaguna ka hadlay waxay sheegeen in dagaalka ay galeen al-shabaabna ay ku jebiyeen islamarkaana ay goobta ku dileen ugu yaraan 6 xubnood oo ka tirsan kooxda argagixisada ah, dhaawacna 4 kale oo ka mid ah ay kusoo qabqabteen. ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada labada dhinac, waxaana weli dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayaa gobolka Jubbada Hoose oo ay ku dagaalameen maamul goboleedka Jubbaland oo dowladda federaalka ee Soomaaliya matalaya iyo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo markaas ayagu kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya lana dagaala dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada intaba.